kulan wanaagsan daawadayaal wararka cayaarahana waxaa inta badan ku eegaynaa xulka Liibiya oo ku guuleystay koobka horyaalka qaramada qaaradda Afrika ee ka socday dalkani Koonfur Afrika. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo guuldaro xanuun badan shalay ka soo gaartay kooxda Stoke City. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal ku eegaynaa ee u diyaar garooba. xulka Liibiya ayaa ku guuleystay koobka horyaalka qaramada Afrika ee ka socday dalka Koonfur Afrika kadib markii rigoorayaal 4-3 uu kaga badiyay xulka Ghana ciyaartii finaalka ee ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Cape Town Stadium ee magaalada Cape Town. ciyaartan oo ahayd mid xiiso badan isla markaana soo jiidatay daawadayaasha ayaa waqtigii loogu talagalay ku soo dhamaatay bareejo gool la'aan ahi kadib markii ay labada xul ismari waayeen waxaana lagu daray daqiiqado dheeri ah iyadoo 30 daqiiqo ee dheeriga ahayd ee lagu daray ciyaarta ay wax natiijo ah ku soo kordhin waayeen labada xul ee Liibiya iyo Ghana inkastoo fursad qaali ahayd oo lagu dhalin karay gool ay soo martay xulka Liibiya. garsooraha reer Algeria ee dhexdhexaadinaya ciyaarta ayaana sida caadada ahaydba ku dhawaaqay in lagu kala baxo rigoorayaal iyadoo dhinaca rigoorayaashana uu 4-3 ku soo badiyay xulka Liibiya oo sidoo kalena kulankii semifinaalka ku soo baxay rigooro ayaa waxaa si weyn u soo saaray goolhayahooda Samir Awood waxaana goolhaya Samir uu xulkiisa ka caawiyay inuu ku guuleysto koobka horyaalka ee qaramada qaaradda Afrika. haddaba qaar ka mid ah taageerayaal Soomaaliyeed oo ku sugnaa garoonka kubadda cagta ee Cape Town Stadium ayaa wax ka weydiiyay dareenkooda ku aadaneed ciyaarta iyo xulkii ay taageerayeen. magacaaga Ali Maxamed Geed Ali waxaad ii warantaa ciyaarta caawa halkan ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Cape Town Stadium. garoonka waxa ka dhacay ciyaar weyn marta oo finaal oo Ghana iyo Liibiya waxa ku guuleystay Liibiya koobkii la qaado haya marka waxaan taageeray kooxda Liibiya marka waa guuleysan weeta marka Ali dareenkaaga waa sidee maadaama aad daawanaysay ciyaarta bilow ilaa dhamaad dareenkaaga ku aadan xulka Liibiya guuleystay ka waran siduu yahay dareenkaaga aad buu xasanay oo maanta bisoo fikrada mana ciyaarta ka soo qayb galo finaalka waana ka soo qayb galay dareenkaaga waana ka xasanay waana guuleystay waana taageersanay ilaa inta garoonka ku dhacay maanta koobka la qaado haya weeta marka Liibiya maadaama ay tahay markii ugu horeysay ee ay ku guuleysato koobka Africa Nations Championship ma rajaynaysaa in wacdaro kale ay ka dhigto ciyaaraha koobka Africa waxaan jeedaa mana African ciyaaraha dambe sanadka dambe inay macna ka soo qayb gasho in ku guuleysato mar labaad mana sira taageeraan maarta soo dhaweeyay weeta aad u maasantahay Ali waa mahadsantahay wariye Next, we call on the Orange African Nations, South Africa 2014 runners-up Ghana to collect their silver medals. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa guuldaro xanuun badan waxa ay shalay ka soo gaartay kooxda Stoke City oo ay ugu martiday garoonkeeda. Stoke ayaa 2-1 ugu awood sheegatay kooxda shayaadiinta cas ee Manchester United waxaana labada gool kooxda Stoke u dhaliyay laacibka lagu magacaabo Jali Adam halka goolka madiga ah uu kooxda Manchester United u dhaliyay laacibka reer Netherland ee Robin van Persie.
John Mata oo ay dhawaan soo iibsatay kooxda Manchester United ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii shalay guuldarada la hoyday iyadoo ay xusid mudan tahay in laacibkaasi reer Spain uu lacag fara badan ku yimid garoonka Old Trafford. taageerayaasha kooxda Manchester United ayaa guuldaradii shalay ku eedeeyay tababare David Moyes oo ay ku eedeeyeen inuu qalday shaxda uu u safay kooxda. xubintii isboortiga ee aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee Universal qiyaar xilligan waa inaga intaas.